بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو إنجنيور حسين محمد عبد الرحمن ما أنتنا وحا إذن وذاقي دونا تينسكي لبعض أهنا تينسكي لحد 12 تنسسكا وبرسنتي وسيمبل باست تنس شلي أيان دوبي ما أنتنا وحا ربعين دوبا باست continuous tense باست continuous tense محل لها sharcigiisa iyo tusaalayaasha ay isku bedelaan ayaan halkan ku arki doonaa si fiican oo la socda insha Allah. Okay, past continuous tense maxaa la dhahaa? What is past continuous tense is used for? Past continuous tense maxaa loo isticmaalaa? What is waa maxay the rule of past continuous tense? Sharciga past continuous tense uu leeyahay maxay tahay? Give an example, tusaalayaalna si auxiliary verbs uu leeyahay past continuous tense na muxuu yahay? Waa was and where ti oo goobta loo isticmaali jiray ma aha where taas haj ayaa la socota was and where marka was and where waa auxiliary verbs of past continuous weeyaan insha Allah aan usii gudubno. Okay, simple past meeshaas past continuous tense ayaan ka rabay ciwaanka ah kore past continuous tense ayaan ka rabay. Okay, past continuous tense maxaa loo isticmaalaa? Is used waxaa loo isticmaalaa to express an action which was happening in the past. waxaa loo isticmaalaa ficil dhacayay xilli la soo dhaafay ayuu continue ahaa ayuu socday. tusaale ahaan shalay camal ayuu socday ficilkan waxaana lagu magacaabaa past continuous tense wax la soo dhaafay oo wali oo socdo wax la soo dhaafay oo socdo ilaa hadda ma socdaya markaasuu socday isla waqtigaas la soo dhaafay ayuu socday. Okay, rule sharciga muxuu noqonayaa? sharcigiis wuxuu noqonayaa subject plus was slash were plus verb plus ing plus object. waxaan horey u soo baranay verbka goorma ing lagu daraa. waxaa ing lagu daraa marka uu verbku yahay present oo kaliya. verb present aan ahayn laguma dari karo ing. Okay, taas waa isla fahnay. Example tusaale, I was playing football yesterday. aniga kubad ayaan dheelayay shalay. He was eating banana. isaga moos ayuu cunayay. yesterday dhihi kartaa hadeertu waa iska dhaaf kartaa. moos ayuu cunayay. Okay, she was cooking lunch. ayada qaday karinaysay when his father arrived. adii kartaa markuu aabiis imanayay qaday yani karinaysay waa la dhihi karaa balse anada kuma daran waa soo gagaabsaday. She was cooking lunch. ayada qaday karinaysay. They were reading lessons. ayaga casharadooda ayay akhrisanayeen. We were drinking water. tusaale waxaa la dhigay ardaydii aawe ardayda casharadooda ay akhrisanayeen aa leedahay. it means waxay ka dhigan tahay marka aniga soo tagay ay casharadooda ay akhrinayeen oo kale waa la soo dhaafay. marka wuxuu leeyahay they were reading lessons. ayaga casharadooda ay akhrisanayeen. We were drinking water. anaga biyo ayaan cabaynay waa la soo dhaafayaa. You were speaking to me. aniga ila hadlaysay ama idinka aniga ila hadlayseen. It was eating meat. ayada hilib ayay cunaysay. mukulaasha shalay hilib ayay cunaysay. tusaale. Okay, affirmative waa kuwii hadda aan soo akhrisinay. affirmative waxaan hore u soo sheegay in la dhaho hadal caadi. affirmative waa hadal iska caadi ah. He was eating banana. isaga moos ayuu cunayay. She was cooking lunch. ayada qaday karinaysay. They were read lesson. meeshan read ka ah ing waa in lagu daro. reading ayaa laga rabay markaan qoraya xogaa yani ka tagay ing ka tagay ku darsada insha Allah. hore ayaan u soo aragnayba. They were reading lessons ayaa laga rabaa meeshaas. We are drinking kan ing waa ka tagay. We are drinking water ayaa laga rabaa. drink waa verbka caadiga. ing kuma aanan darin meeshan drink meeshan ing lagu daro. drinking hala dhaho meeshan reading hala dhaho insha Allah. We are drinking water. You were speaking to me. idinka aniga ila hadlayseen ama idinka anigaad ila hadlaysay. adiga anigaad ila hadlaysay. It was eating meat. iyada hilib ayay cunaysay. I was playing football. waxaa idinka raali garaynayaa they iyo we labadaba ing ayaa ka maqan. read waa verbki. ing ayaa ka maqan. reading ayaa laga rabaa. drink iyadana waa verbki. ing ayaa ka maqan oo ah drinking in la hal rabay. ka raali ahaada meeshaas ing ku darsada insha Allah. negative ka aanu gudubno. Okay, negative ka wuxuuna leeyahay I wasn't playing football. aniga kubad ma ciyaaraynin. when you call me oo kale markaad isoo wacisay kubad ma dheelaynin. Okay, hadaartu ku darsan kartaa hadaartu waa iska dhaafi kartaa. Okay, I was
I wasn't it means waa short form kii waay I was not adhi kartaa I wasn't playing football aniga kubad ma ciyaaraynin he was not eating he wasn't eating banana isaga moos ma cunaynin she wasn't cooking lunch iyada qada ma karinaynin they weren't adhi karaa ama they were not adhi karaa same way they weren't reading lessons iyaga casharada ma akhrisanaynin we were drinking water anaga biyo ma cabaynin you were not speaking you weren't speaking to me idinka aniga ilama hadlaynin ama adiga aniga ilama aadan hadlaynin it wasn't eating meat iyada hilib ma aysan cunaynin hasi gudubno was I playing football ma aniga kubad ciyaarayay was he eating banana ma isaga moos cunayay were she cooking lunch ma iyada qada karinaysay were they reading lessons ma ayaga casharada akhrisanayay were we drinking water ma aniga biyo cabaynay were you speaking to me ma aniga ila hadlaysay ama ma aniga ila hadlayseen was it eating meat ma iyada hilib cunaysay wasn't I playing football aniga kubad ma dheelinin miya wasn't he eating banana isaga moos ma cunaynin miya wasn't she cooking lunch iyada qada ma karinaynin miya wasn't they reading lessons ayaga casharadooda ma akhrisanaynin miya wasn't we drinking water anaga biyo ma cabaynin miya were not you speaking to me idinka aniga ilama hadlaynin miya mise adiga aniga ilama hadlaynin miya wasn't it eat meat iyada hilib ma cunaynin miya halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh